وهذا سؤال شيء ودي سمع horta aad bay noo salaamayaa waxaan ahay Sikaawe Ismaaciil ninkii bariyahan ba lahada hayay saabiriin qabay bariyahan dadka dhan way hadalay meel kasta waan ka maqlay jawaabtana hadda rabaa inaan macnaheedu aan ka hadlo maadaama maxaa dadku waxaan ku nidayn waayeen waxaan ku naga yaabiyeenba marka wax dhiba ma leh maxaa jawaabtana way weydiin kartaa aniga saabiriin muddo waxaan naga dhaxeeyay xoogay ilaa adoo biliya xoogay baan wala sheekaysanay sheekadeena waa noo dhamaatay kadibna markii dambe waan isguursanay nololna waan wadaagnay horta laba qof kasta maxaa is doorta maxaa family ma soo dhaxgalo labada anaga is dooranay anagana is jeclaanay anagana waqti maxaa isku luminay kadibna markii dambe waan isguursanay heerkoodana si wacan bay ii siiyeen si sharaf la ii siiyeen maxaa waan la kala soo wareegay ma sha Allah saabiriin wallahi daadeed waxa weeye 20 jir weeye daadeedina aniga waxa weeye 19 baan ahay dadka waa arkay soo dhigaya 50 jir 40 jir buu yahay ama 30 jir buu yahay horta qofna qof daadiisa maxaa qofna mu qadalin hooyadii iyo aabihii maxaa saabiriin waxay tahay way muuqataa anana waxaan ahay waan muuqataa dadku waxa laga yaabaa marka mariyo waaweyn ama suul waaweyn xidho waxa laga yaabaa in dadku isleeyihiin maxaa waa nin weyn wallahi saabiriin adu waxaan muddan kala weynahay waan ka weyn saabiriin runta fiican iyadoo 20 jir weeye anana 27 aan ahay waan ka weynahay mana isku yar dhaweyn daado laba sano 3 sano noqoysa ma garatay waan kala weynahay aniga saabiriin haddana yaraan iyo weynaan waxa weeye jacaylku male calaf la isku leeyahay calafka wax kasta weyn ha saabiriin daade ma aha 13 jir 12 jirna ma aha saabiriin waa daad aan ku sheegay talabaadna saabiriin waxa inaan bay haysataa inankeedu waa sanad iyo 4 bilood weeye walaal waa sidoo nabiga ugu duceeyay saabiriin sida aan ku sheegay weeye ilma yarna way haysataa ilmaheedina waa ilmaadu xoogay jira weeye horta dadku waan arkay walaal dad badan maxaa aniga maxaa meelaha ka qayladayo ka hadlaya oo wax kasta horta naga sheegaya aan waxaan jeclaan lahaa inaan noo soo duceeyo mar kastaba aniga iyo xaaskayga saabiriin balana waxaan ugu qaadayaa iyada iyo ilmaheeda iyo anigaba inaan kaafiyada qaadi karo mas'uuliyadda aan qaadi karo mar kasta waxaan jeclahay inaan noo soo duceeyo aan meelahan laga sheekeyn man ugu horeyn dad ama isguursadaa ama man ugu horeyn bulshada waxaan ka jeclaan lahayn dadka meelaha nagu hadlaya inaan noo duceeyo waxaan ku riday ducada la soo badiyo